xafladan oo lagu soo xirayay koobka degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug oo sanadan cadaada ay marti gelisay waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka socday labada gole ee dowlad goboleedka Galmudug maamulka degmada Cadaado marti sharaf iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabada waxa ugu horeyn daafuray gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye Warsame oo ka sheekeeyay habka Cadaado koobkan ay u marti gelisay iyo guulihii laga gaaray inta tartanka degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug uu socday waxaan ka baranay qabashada koobkan casharo badan ayaan ka baranay waxaan ka baranay isdhexgalka ummadda iyo iswalaalaysiga waxaan ka baranay isku kalsoonida ummadda reer Galmudug ay qabto heerka uu gaarsiisan yahay inuu yahay heer aad u sareeya waxaan ka baranay in 500 oo qof oo ka kala yimid degmooyin qaarkood ay isku jiraan 300 oo kiiloomitir ka badan inay xaralkan iskugu yimaadaan wada ciyaaraan markay ciyaarta garoonka ka soo laabtaanna midii geemka mobilada ay wada ciyaaraan wada sheekaystaan degmada Cadaadana arintaa waxay u tahay guul iyo sharaf weyn ay u tahay aan rajaynaynaa in ay Galmudug maadaama Cadaada ay kaga taalo meel center ah sida Galmudugga Soomaaliya ay xudunta kaga taalo inay ciyaaro badanna sidaas oo kale Galmudug ay martigelin doonto Cadaadana ay tahay meel amaal weyn ku leh reer Galmudug oo ay tahay meeshii lagu aasaasay Cadaado ee Galmudugna lagu aasaasay waxaan rajaynaynaa marka la soo xasuusto Galmudug isku imaanaysa inay tahay meesha isku imaanaysa meesha ugu qalantay ugu haboon inay Cadaado tahay mas'uuliyiinta ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee kulanka ka soo qayb galay ayaa dhankooda khudbado kooban jeediyay waxaana ay ku ammaaneen maamulka iyo shacabka degmada Cadaado habka uu marti galiyaan koobka degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug iyagoo sidoo kale u hambaliyay degmada Cabudwaaq oo ku guuleysatay sanadkan tartanka kubadda cagta ee degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug Puntland fiirsha iyo Garowe baladweyne iyo Hirshabeelle fiirsha meeshii la dhihi jiray koonfur galbeed iyo Baraawe fiiriya Gedo iyo waxaad fiirsaan Jubbaland xaaladdu waa bariga dhexe laakiin reer Galmudug caawo waad dabaaldegaysaan kooxihiinnii baa kala badinhaya waa faystaynaysaan anigu difoosan qolo u hayo u imid qoladiina waa adkaatay daadminis ma aha anigu xildhibaan reer Galmudug oo dhan maaragtay matalaan ahay laakiin hadda waxaa la yidhaha habeenkiina habar maalintiina oday xoogaa yar ba iska jirta raalli haada intaas waa kaftan saakay horta saddexdii beri oo la soo dhaafay aniga iyo xildhibaan Qaasim iyo xildhibaan Raysal iyo waan isla joognay rajadoodu ma fiicnayn xildhibaan Qaasim xataa inuu mar iska joogo waa ku sigtay markaan galabta soo baxayno rabnay halka soo aadno wuxuu ku celcelinayay warniyo dhuusamareeb ilaa markii ciyaartu bilaabatay hal mar lagama badin marka xaaladiisu ma fiicnayn galabta guusha uu gaaray iyo de moralkiisa khatar geli lahaa haduu soo guuleysan lahayn odaga waa ku faraxsanahay inuu guuleystay guud ahaan halkan ciyaaraha ka qabsoomay iyo qaybaha kala gedisan ee dadka kala gedisan ee saamaynta ku leh madaxweynaha Galmudug oo de caradan odayga ah oo suurto geliyay waxaan inay sidaan u dhacaan wasaaradda ciyaaraha iyo isboortiga xiriirka kubadda cagta iyo degmada Cadaado gobolka guud ahaan intii iska kaashatay horta waxaan leenahay dhamaantiin shaqo wanaagsan ayaad qabateen gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha dowlad goboleedka Galmudug Xasan Axmed Shire Xasan Kaniif oo dhankiisa munaasabada ka hadlay ayaa ka warbixiyay hanaanka koobkan ay u soo agaasimeen iyo sidoo kale habka uu ku soo dhamaaday halkan waxaa ka socday tartan uu ku soo bilowday 5 Juun 2023 maanta caawa ah 19 bisha ayaana loo joogay xafladda xiritaanka 10 kooxood ee ka soo qayb gashay oo ka kala yimid deegaanada Galmudug iyo degmooyinka Galmudug Gaalkacyo Cabudwaaq Baranbal Dhuusamareeb Cadaado Wusil Gurceel iyo Baxdo iyo Xaraale ayaa ka soo qayb galay tartankaas dhammaantood waxay xaadir ku ahaayeen magaalada hal goob ayay deganayeen sida gudoomiyaha degmada uu sheegay
waxayna dhammaan ka qayb galeen tartankaas koox kastaana sidii loogu talgalay anshaxa bartikolka koobka ay sharciga ayadoo dhowraysa koobkii dhashay ugu dambeyntiina galabta waxaa goobjoog ahayd madaxweyne finaalkii ciyaartaas oo dhexmaraysa degmooyinka Dhuusamareeb iyo Cawda koobkiina waxaa ku guuleystay oo aan rabnay halkan uga hambalyeeyna degmada Cawda oo ahayd martigii sanadkan guuleysay sanadkan waxaan leenahay hambalyo Cawda iyo caasimada oo idin kaalin labaad gashay dhammaan tartamada kooxihii ka soo qayb galay tartankan madaxweyne wuxuu ahaa tartan waqti badan la geliyay oo ay soo aawshay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xiriirka cagta Soomaaliyeed iyo xiriirka Galmudug dhammaantoodna waxay ka mideysnaayeen tartankan in uu dhaco si habsami leh oo aan aysan ka imaanin technicalkiisa iyo farsamadiisa qalad ka imaan garsoorayaashana qalad ka imaan dadka koobka daadiinayay ee saxaafadana qalad ka imaan gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cali Shiine oo dhankiisa munaasabada ka soo qayb galay ayaa si weyn ugu bogaadiyay Galmudug iyo maamulka degmada Cadaado qabashada koobka degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug waxaana uu sheegay in ka xiriir ahaan si weyn ay u taageeri doonaan horumarinta sportska Galmudug madaxweyne sida la socoto tartankan 10 degmo ayuu ahay oo ka socda degmooyinka Galmudug waxa martiglis degmada Cadaado 500 oo qof oo bini'aadmiya dowladda 20 maalin la soo dhaafay degmadu wax kulli waxay ku howlaneeday in dadkaas martigeliso marka loo fiiriyo kubadda cagta masalan madaxweyne in 500 oo qof la martigeliyo dowladaha waaweyn oo ciyaaraha kubadda cagta martigeliya way ka cabsadaan 500 qof laakiin waxaan isleeyahay reer Cadaado waxay kaashadeen weeragnimo hore lahaayeen ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa soo xiray xafladan oo munaasabada lagu gudoonsiiyay ciyaartoyda degmada Cabudwaaq ee ku guuleystay tartanka degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug degmada kaalinta labaad soo gashay oo ah caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb maamulka degmada Cadaado abaalmarin ku mutaystay habka ay u martigeliyeen koobka degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug iyo shakhsiyaad kale oo dhankooda kaalin muuqata ka qaatay in koobku si habsami uu ku soo dhamaado gaar ahaan waxaan u hambalyeeynaa guuleystayaashii waxaan si gaar ah ugu hambalyeeynaa degmada Cabudwaaq oo ku guuleysatay ciyaartii waxaan rabaa sidoo kale inaan u hambalyeeyo dhammaan kooxihii ciyaarta ka soo wada qayb galay degmooyinka ciyaarta ka soo qayb galay kooxihii soo bandhigay ciyaar wanaagga waxaan leeyahay meel aad joogtaan degmooyinkii iyo kooxihii kale aad iyo aad mahadsantihiin hambalyo waxaan si kale sidoo kale rabaa inaan dhahdo hambalyo caasimada dowladda Galmudug ciyaartoydeedii iyo caasimada oo kaalinta labaad galay waxaan runtii meeshaan inaan aad iyo aad uga hambalyeeyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo xiriirka kubadda cagta ee Galmudug iyo degmada Cadaado reer Cadaado martigeliyay ciyaarihii labada xiriir waa maasantiin gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waa maasantahay ugu mahadcelinaynaa sida gaarka runtii oday aad Galmudug uga soo qayb gashay hawsheedana aad xil gaar ah iska saarteen reer Cadaado maamulka dhammaan bulshooyinka reer Cadaado halkan ammaan badan baa laga soo jeediyay 500 oo qof inaad muddo bil ku dhow martigeliseen ciyaarihii degmooyinka Galmudugna ay noogu dhaceen oo noogu dhamaadeen si nabada xasiloon aanay ka dhicin xataa hal shil oo yar waxaan leenahay reer Cadaado aad baa mahadsantihiin إيران كلا قادين دليردي قبله قرصتدي قدومي أديك يو دمان قيبا كردون تكمل على هذا وحنا لا هي همبليو وما سنتي كفرحي إلكا أصحاب هذا يو قرابة هذا ولسودك أبكى دهبشيل سياد سفضل لعقو قدرتو marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed